Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Teacher Muhammad and I am from Grand Online Academy. Welcome to this lesson on the third conditionals. Today's lesson is about a grammar and we're going to be talking about the third conditionals. Okay, before we start the lesson, I'd like you to share this lesson with your friends and family on Facebook. Thank you very much. aad baan idin salaamayaa dhammaan bulshada iyo ardayda qaaliga ee Soomaaliyeed. Magacaygu waa Macallin Maxamed, ku soo dhawaada Grand Online Academy. Biidhnillaahi tacaala maanta waxaanu qaadan doonaa 10 grammar waxaynu ka hadli doonaa ama waynu baran doonaa the third conditionals ama conditionalska saddexaad ama type 3. haddaba intaynaan 10ka u guda gelin waxaan idinku codsanaynaa inaad 10ka noo like gareysaan sidoo kalena aad la wadaagtaan bulshada iyo qaraabadiina Facebook. And now we are going to start the lesson and let's get to the board. Like I said earlier, today's lesson is about the third conditionals. Okay? And first and foremost, we need to talk about what the third conditionals are, inshallah ta'ala. The third conditionals. Third conditionals, sida ka muuqata waa conditionalka saddexaad ama waa type 3 ba loo yaqaanaa. And it's also known as the hypothetical and unreal situations. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa hypothetical oo ah waxaad ka fikirtay oo aan dhicin ama waxaan waxa weeyaan aan horey u dhicin. And unreal situations, waxyaalaha ama xaaladaha aan runta ahayn, wax aan dhab ahayn amaba aan dhicin ayaa loo yaqaanaa ayuu ka hadlaa the third conditionals. Okay? We talk about when we talk about basically we use it when we talk about something that did not happen in the past. waxaan isticmaalnaa markaynu ka hadlayno waxaan mustaqbalka dhicin. Okay, so markaynu ka hadlayno formationka amaba waxay ka kooban tahay waxa weeyaan the third conditional horta sentenceka sidiisaba laba loo qaybinayaa waa the if clause and the main clause. qaybta iftu ku jirto iyo qaybta dambe main clause-ka loo yaqaano. Okay, marka waa if oo lagu daray past perfect, okay, oo loo geeyay would, oo loo geeyay have, oo loo geeyay past participle. If plus past perfect plus would plus have plus past participle. Intani waa formationka ama qaabka loo sameynayo jumladda ama markaad dhisiso jumladda waxay ka kooban tahay. Okay, the if clause and the main clause. Marka waxaynu eegi doonaa tusaalayaasha si aynu u fahanno muxuu yahay the third conditionals ama markaas sidee baa loo isticmaalaya biidhnillahi ta'ala. And now we'll move on to the examples and we'll see the sentences that we have on the board for you to understand what the third conditionals are and when we are supposed to use them, inshallah ta'ala. So let's get to the examples. So the first example is example ka koowaad waxa weeyaan if I had worked harder. If I had worked harder, haddii aan dadaalka intan ka sii badin lahaa oon aad u sii dadaali lahaa, I would have passed the exam. waan baas garayn lahaa ama waa ka gudbi lahaa imtixaanka waan baas garayn lahaa. Okay, jumladdaas sida ka muuqata markaynu horta formationkeeda aynu eegno waxa weeyaan wax lagu bilaabo waa if. Okay, oo qaybtan koowaad waxa loo yaqaanaa if clause. If baa lagu bilaabay. Okay, sidoo kale waxaa la isticmaalay past perfect, had worked. Past perfect baynu isticmaalnay. sidoo kale maxay waa verbkii ama main verbkii. Okay, qaybta kale main clause-kan waxaa la isticmaalayaa waa would haye plus have plus past participle. sidoo kale verbkuna waa past. Okay, marka taasi waa formationkii. markaynu eegno macnaha waxa weeyaan haddii aan dadaalka intaa kasii kordhin lahaa oon dadaalka intaa kasii badin lahaa waan baasi lahaa imtixaanka. Already not dadalin, okay? This person did not work hard and they did not pass the exam. Mu dadalin, imtixaankina mu baasin. Marka this is a hypothetical situation. Tani waa waxaad ka fikirtay un. Maaha laakiin wax dhacday. It's unreal. Waa wax aan dhab ahayn weeyaan. Maaha wax runa. Okay? Marka sidaynu ku sheegnay ama aynu ku soo sheegnay waxa loo isticmaalayaa the third conditionals markaad ka hadlayso wax tagay oo aan dhicin. Okay, waxaa sidoo kale markaa imagine garaynaysaa ama aad ka fikiraysaa haddii waxaasi uu dhici lahaa
wuxuu noqon lahaa resultku haddii waxaasi uu qabsoomi lahaa maxay natiijadu noqon lahayd okay qofkan haddii uu dadaali lahaa muxuu resultka ama natiijadu noqon lahayd they would have passed the exam imtixaankay baas garayn lahaayeen okay xaggaa waad fahanteen okay let's keep on aynu kusii soconno okay if I had not eaten so much if haddii I had not eaten aanan cuneen so much cunto badan haddii aanan cuneen maxaa dhici lahaa I wouldn't have felt sick I wouldn't have felt sick xanuun maan dareemeen ama maan xanuusteen marka xanuun maan dareemeen ama jiro maan dareemeen okay waxan miyay dhacday maya wax dhacay maaha horta first of all we need to know that we are talking about the past something that did not happen in the past waxaynu ka hadlaynaa wax tegay at the same time sidoo kale waxani wax dhacay maaha it's a hypothetical situation or condition waa wax aan dhicin baynu ka hadlaynaa okay laakiin haddii sidaasi ay dhici lahayd sidan bay noqon lahaa maxsuulka ama resultku if I had not eaten so much haddii aanan wax badan cuneen okay maxaa dhici lahaa I wouldn't have felt sick maan xanuusteen weeyaan ama xanuun maan dareemeen okay laakiin already wixii waad cuntay sidoo kale waanad xanuunsatay marka muxuu leeyahay waa haddii aanan cuni lahayn haddii wax jira maaha it's hypothetical unreal waa waxaan dhicin weeyaan already wax badan buu cunay qofkaasi kadibna xanuun buu dareemaya imka uu xanuustay marka wuxuu leeyahay haddii aan iska dayn lahaa ama cuntada iska yarayn lahaa imika xanuun maan dareemeen okay the third example we're going to move on to the third example tusaalaha saddexaad haddaynu u gudubno okay if it had rained haddii uu roob di'i lahaa okay haddii uu roob di'i lahaa okay maxaa dhici lahaa let's see you would have gotten wet waad qoyi lahayd haddii uu roob di'i lahaa maxaa dhici lahaa waad qoyi lahayd laakiin roob muu di'in at the same time qofku muu qoyin marka waxani waa hypothetical waa wax qofku sawiranayo waa wax waxa weeyaan qofku uu maskaxdiisa ka fikirayso weeyaan waana wax aan run ahayn if it had rained you would have gotten wet haddii uu roob di'i lahaa waad qoyi lahayd okay and the fourth example she wouldn't have been tired may daalanaateen ama imika daal may dareenteen if she had gone to bed earlier haddii ay hore u seexan lahayd oo waqti hore ay seexan lahayd hadda may daalanaateen laakiin maxaa jira hore umay seexan marka waxayna dareemaysaa daal badan bay dareemaysaa laakiin haddii ay hore u seexan lahayd hadda may daalanaateen weeyaan okay haddaba jumladda afraad ama exampleka afraad in yar intaanan ka gudbin muxuu kaga duwan yahay examplada hore aan soo dhaafnay ama saddexda example ee sare okay qaybtan if clause ayaa la soo horeysiiyey kadibna waxaa la dhigaa comma qaybtanna main clause-ka la soo horeysiiyey wax comma ama waxa weeye hakad ah oo yaalla ma jiro marka waxaad niyadda ku haysaa haddii if clause-ku uu soo horeeyo kadib waxaa la dhigi doonaa comma hakad baa la dhigaya haddii main clause-ku uu soo horeeyo sida ka muuqata tusaalaha afraad oo waxa weeye main clause-ku xagga hore yimaado if clause-kuna uu xagga dambe maro ama qaybta ifta wadatay xagga dambe marto wax comma oo la dhigaya ma jirto laakiin macno ahaan wax isbedelaya ma jiro okay waa same macnuhu kaliya waxa isbedelaya waa haddii iftu soo horeysa ama qaybta ifta wadata comma la dhigaya sida saddexda example hore ka muuqata haddii sida exampleka afraad ka muuqatana la soo horeysiyo qaybta main clause-ka wax comma lama dhigay inta marka hala yaabin wax isbedelaya ma jiro marka waxa weeyaan macnuhuna halkiisa buu ahaanaya okay now we're going to move on to the last example of our lesson for today waxaan u gudbi doonaa example-ka u dambeeya casharkeena maanta if you had told me about the meeting haddii aad ii sheegi lahayd inaynu leenahay kulan iyo meeting I would have come waan iman lahaa I would have come waan iman lahaa okay laakiin umuu sheegin inuu jiray sidoo kale qofkuna muu iman laakiin wuxuu leeyahay haddii aad ii sheegi lahayd inaynu meeting iyo kulan leenahay waan iman lahaa okay marka ardayda qaaliga ee sharafta badan xaggan casharkan waxaynu ka fahmaynaa in horta ugu horreyn waxaan ay yihiin wax aynu kaga hadlayno wax tagay oo aan dhicin ama aan macquul ahayn
marka dabcan waxa weeyaan hypothetical situations baa la idhahdaa ama unreal situations waxaad ka fikiraysaa wax aan qabsoomin oo wax tegay ah haddii aan samayn lahaa san baa dhici lahayd okay if I would have done this this would have done haddii aanan saas samayn lahayn sidan may dhacdeen haddii aan sidaas samayn lahaa sidan aa dhici lahayd okay marka aad baa mahadsan tihiin and this is it for today I want you to make sure that you write your own sentences and your own examples in the comment section below idinkan waxaa rabaa inaad tusaale aad leedihiin kusoo qortaan comment sectionka and thank you very much see you next time in the next class Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh